Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Mar kale waxaan salaamay. Fariintan waxay ku socotaa waalidka Soomaalida qaybta ragga. Gabdho badan oo walaalo ah waxay anugu maxamed salaam ana kiris bari maayo. Qofkaan aqoonna isagaa soo i aqoon doona. Isagaa i raadsanaa i soo helaayo. Waxaa la yidhahdaa dadka la isma baro qofka rabo inuu ogaado isagaa soo ogaan doona. Qofkaan kala jeclayna ku kala jeclayna kuma kala jeclo. Gabdho marar badan waxay igu dhaheen waana waxa igu dhib badan in la weydiiyo walaalow maxamed saalaxow annagii war waan buuxnaa waxbarasho iyo yurub iyo challenge ka jira raggi aawe is the worst question la weydiiyo gabdhii waxaan kula taliya waxaan raxma idin sheegaa raggii laba meel baa laga helaya meel waxa waaye agtiina dumarow meelna waxa weeye jimcaha iyo khudbadda masaajidka masaajidyadana idinkaa wax ka bixiya lacagta idinkaa la garaji ka dhiga culimada u sheega dadkan la yidhahdo jiyaanka la yidhahdo waxay waxa la yidhahdo bayaan soomaalidu ma qabto bayaan waxa weeye turkiga xitaa waa saas inta jimcaha ka hor ugu yaraan 40 minutes waxaa looga hadlaa waxyaabaha ummadda markaa la rabo in laga soco oo diin oo idoo garanaysa bayaanka in lagu daro way badanaa markii salaada laga baxo dadku horey ka carara marka waxaan kula talin lahaa wareedhe culimada la hadlo waxaad tirahdaan please and please please and please waxaa laga yaabaa in la yidhahdo anigu ma garanay adhoonu shaafici aan nahay baqan bayaanka ma naqaan anyway in la yidhaahdo bayaanka looga hadlo inaan la maagin rag yaan la oran ragga u beerta waxba ha la yidhaahdo aabow ma og tahay saad muhiimka ugu tahay inaad wakti siiso carruurtaada iyo reerkaaga waktigu macneedu maaha waanu soo adeegay keliya maaha waa haddaad u adeegtay maalintii ka dambaysa hadalkaas waxaa laga yaabaa inuu wax waxaan ka sheekeeyey ku saabsanayd wiil ummadaha kala ah aabbihiis iyo hooyadiis way shaqeeyaan waa isdhaafaan wiilka waa 11 jir waxbarakadii baa ku adkaatay aabbihiis wuxuu ku yidhi aabbow icaaw odagu shanta saddexduu boors baxaa night shift odagii dheg uma jalacsiin lacag baa u cad wiilka maalinta wuxuu yidhi aabbow how much you earn per hour adiga saacadii meeqa qaataa lacagta anaa ku siinayay caaw odagii bii buu qaaday paranoid wuxuu u maleeyey laanta inay ku dirtay islaamahan horumarka iyaga ma rabaa ayaan dambaa odagii wuxuu ku fiicnaa parent ifrinkii buu tegey inuu kuleenu ma tagaa badankooda islaamaha dhaha anaa aqaan tagaaya parent ifrinkii buu tegey waxaa loo sheegay cunugiisu inuu aad u hooseeyo reading buu ka hooseeyaa writing buu ka hooseeyaa xisaabtii buu ka hooseeyaa ninkan kolley waa nin wax bartay sidan original issue ka yimi ninkaasi waa ooyey qalbigiisa xumaaday wuxuu yidhi wiilkaygu mar horuu ila hadlay ka soomaaligu ma dhahayo aaboy caawi ma dhahayo mar horu ka qustay hooyo caawi buu leeyahay guriguu ku soo noqday wuxuu yidhi aabow raalli ahaw hadda laga bilaabo anaa ku caawinaya sidaasuu ku bilowday fariista wiilkiisa soo saaray maseedku waxa weye ragga dhegaysan doono walaalayaalo whatever reason whatever answer ay siisaan waxa laga yaabaa su'aal ay siin doontaan qayb ka mid in dhihi doontaan xaaskayga iyadaasaa tiri kow walaalow gabar baa lagugu soo daray horta maxaa adrees laba adrees idinka dhigay su'aal labo gabar baa lagugu soo daray oo ragga a iska kaa dooratay oo adna gabdhaha ka dooratay gabadhi keligeed iyo carruur maxaa socodsiiyey adiga aawo wuu hurdaa fadhi ku dirin buu jiraa wasiir wey soomaaliya mb weye hawl kaloo haya naa kaloo gursaday mar hore kala tegeen weligii ma joogin weligii wax ma tarin carruurta this is the what we have waxaa laga inaad tiraahdo islaantadan waxaan heshiis ku nahay inaan kasoo qaad uk baan joogtaan
adigu Birmingham baa reerku degan yahay, adigu London baa degan tahay, inaad 2,000 oo pound u shaqayso wiigii baa ku ballanteen. Islaantuna maxay samaynaysaa? Baabuur samasiida wadataa carruurta inay kaxayso, iskuulka soo celiso, soo celiso. Waxaan ku taliyaa idiin sheegaa taa walaalayaalow, marka waa laga dhegaysan doono. Noloshu waa qaybo badan tahay. Noloshu maaha keliya qofka physically in loo koriyo maaha. oo sidii maxbuuskii kac, hubayso, cun, tuko, gaariga soo gal, iskuulka tag, soo kaxay keliya maaha. Intaa waa ka badan tahay. intaasi 10% weeye. Ilmahan gabadha waxay tiri carruurtaan raba inaan kaxeeyo iyagoo yaryar Soomaaliya geeyo 5 sano inay maqnaadaan. waxaan ku yidhi walaal carruurtaada waktigii kuu baahnaayeen waaye, emotionally kuu baahnaayeen, akhlaaqda waktigii baranayeen, markii soo dhismayeen weeye. marka hadday maqnaadaan carruurtaasu waalid la'aan bay koreen, agoonta waxba kama sokeeyaan. islaantii qalbigeeda wax badan baa ka bedela, waana runtii. walaalow marka waxaan ku taliya anigu inaad magaalo kale 10,000 oo pound bishii uga soo shaqayso. mas-uuliyadda anaa iskale waxaan dhihi doonaa haddana 10,000 oo pound inaad magaalo kale uga soo shaqayso, aad ka maqnaato, inaad cayr wada qaadataan oo aad carruurtaada la joogto, oo gurigaagu adrees ku ahaado, oo kan habeenkii labada xanuusta aad dhakhtarka geyso, oo kan beer ballan kale aad kaxayso, oo aad tiraahdo xooggaan anaa dhalay, ayaa ka faa'iido badan oo ka saxsan. anigu akhriya adduun kulli waxbaan ka aqaanaa. Nobody can challenge me this. anaana og waxaasa odhina. haddaad leedahay oo maxaa saa u tiraa shaqaysan baad leedahay, carruurta xoolamaha ma ogtahay? xoolaha waa la wadaa, waa la soo celiya. macno weyn baa ku jira. waxaa laga sheekeeyey 2 dhac. dhakhtar wuxuu ka shaqaynaya magaalo fog, cidda wiigii kumanaan lacag buu u soo diraya. lacagtaasoo enjoy. dhakhtarna reerkuu la joogayo carruurtuu ku dhex jiray. dabaashuu u raacayey, masaajidkuu u raacayey, tuushinkuu geynayey, bannaankuu ku sugaayey, maktabaduu la aadayey. dhakhtarkii carruurtiisa ku dhex jiray successful bay noqdeen. carruurtii aabbahood maqnaana cagtii bay ku fadaroobeen, halkaasay ka baxeen. nin tagsiilo ah baa waxaa laga sheegay carruurtiisu hadda jaamacada ka baxeen. waxaan ka xumahay carruurtayda markay yaryaraadeen inaan waqti siin, waayo hadda ima yaqaanin carruurtayda. khasaaro cad waay. maxaa talaa marka? maxaa talaa? please and please. ma ogtihiin carruurta waalidkood lagu arko aabbaha weliba uu la socdo gaangigu xataa inaan ku degdegin? ma ogtihiin xataa iskuulku inuu ixtiraamayo waxaan aabbii baa socda? laakiin haddaan bannaan ku sugno ka dhuumanno, innagu waxyaaba kale ku fekerayna, lacag ina sameeyo iyo hawlo kale iyo islaantaasaa raalli ku ahay, wax kalaan ku maqanna wax ka jira male. wax ka jira male. waxaa la yidhahdaa carruurtu raalli ahaado. waxaa la yidhahdaa carruurtu waxay u dhexeeyaan. carruurtu waxay u dhexeeyaan labada gacmood ma jeedaan, way ku dhex jiraan. dabaylaha dhacaya oo hawlo marka carruurtaasi waa safe. waxaa la yidhahdaa attachment. ku lifaaqnimada carruurtu ku lifaaqan yahay waalidkood. waxaa lahaa gudaha waa hooyada, dibaddana waa aabbaha. innaga marka Soomaali haddaan waxaa moodaa in la yidhi aabbihii ama hooyadii baa wax kale u dirtay, ama wuxuu yidhi shaqa ma hayo, carruurteenna ogaada dhinacaa dhan baa bannaan, saasaan ku wadnaa. darbiga ayaa waaye hooyadii. darbiga xagga aawe aabe aawe. dhaqaaluu ku maqan yahay, siyaasad buu ku maqan yahay, xanaaq buu ku maqan yahay, iyo waa la isqabtay, waa wadaysaa. hooyoy marka adigu dhinacaagii okay baa tahay. hooyada qayb bay ka tahay iminka ragga shaqadan rabna inaan u dirno. adigu dhinacaan mas-uuliyadda ma qaadi karto, derbigaa bannaan ma buuxin karto. waxaadna ku buuxin karin dhaqaalaan ku buuxin karin, waxaa rabto akhri.
waa very important cunugaasi wuxuu noqonayaa cunug dhammaystiran buu noqon doonaa insha allah kow aabbuu marka maxay tahay waxaa jira waxyaaba macnawiyan waxaa jira waxaan muuqan waxaan muuqan laakiin macno weyn ku fadhiya tusaale ahaan marka laga hadlayo emotionska laga hadlayo feeling waxaa la yidhahdaa qofka ku dharbaahaa xanuunkaasi wuu baa laakiin qof hadal xun hadduu kugu dhaho waxaa la yidhahdaa wixii fiican qalbiga laga xasuustaa wixii xunna niyadda lagu haya waxaa la yidhahdaa qofku dharbaaxa xanuunku waxoogaa dhuugta laakiin hadal lagu yiri oo si xun lagu yiri weligaa ma idho waxaan ka soo wadaa marka emotionska marka wax laga hadlayaa wax muuqda maaha soo maaha xataa ka hadla wax muuqda maaha cunugaaga inaad tiraahdo maandhow aabbow lacag baan rabaa boqol boo qaasoco dhaf aabbow kumon ho waxaas material waa waxaan ka hadlayaa wax intaba ka qiimo badan oo maxay tahay carruurtaada miiska la fadhiiso lanjar baan saan u jeedsin maalin family soomaaliyeed gabadhi waxay tiri soomaalidii bliis am bliis waxaan rabaa anigu warkaa waa hayaaye odagayga iyo wiilkayga la hadal yaro adigu dhowr iyo toban jira odagaan ku hormaray aba fiican baata islaanta waa amaanta ninkii inoo shaqeeya fiican waa wuxuu yidhi barashada islaanta shaqa ku leh odagii waxaan inta aragta ugu sheegay bliis am bliis intaad joogto ilmaha la fariiso gabadha feedback bay iisoo dirtay maalintii dambe waxay tiri xalay was one of the best nights of in my marriage inta lay qabay xalay igu fiican maxaa dhacay carruurtii markaan seexinay baa ninkaygii la soo fariistay wuxuu yidhi ma ogeyn inaa saa u dayacan tahay hadda laga bilaabo waan kula shaqayn doonaa adeegii keligoodaa socda gurigii keligoodaa jooga gbgii keligoodaa jooga islaamiyi parent evening keligoodaa jooga interviewgii keligoodaa jooga aroosyada unbaa la arka odagii gabadha markii la aroosay carruurtooda iyo koofiyad weyn marka maxaa iga tala ah biliis waxaa laga yaabaa inaad tiraahdo kow anaga soomaaliya aabbo war nooma hayn aabbahay afar naag buu qabay hooyada iyadoo buyir buu furay markii way dhacda taas laakiin ilmahaga matidii baa ku dhici doonta adigu markaa 10 jireed kaba ma wadan ilmahaga ma kaba la'aan baa rabta adigu jaaniska ama helin ilmahaga ma goyni maya walaalo kow gabadhii reerood xagga noo dhig ka hadli maayo aydaa isdabirta taas waxaan ka hadlayaa carruurihii oo weliba wiilashi u badan yihiin waxaa laga yaaba inaad tiraahdo anu waxma baran qasab wax looma baahna khasab ma aha inaad uga sheekayso fisigis iyo maatis iyo ingiliish iyo ka hadli mayno satin ka hadli mayno jaamacadna ka hadli mayno waa level kale waxaan ka hadlaynaa wiilku inuu dareemo aabbuu soo fadhiiso iyo hor makhaayad wada taga gacantaya kafee soo wada caba wiilashi waa soo korayaa wiilka waa soo korayaa 18 19 20 21 haddaadan adigu gaabkaa buuxin rag kalaa buuxin doona baabuur wata wadan waru hayn oo timatid can adaa cidla taajiyey waayo 16 islaantu gacanta ku haysay wuu ka soo dhammaaday maxaa kaloo tala ah wiil baa soo dahay 16 jira odaygi waa waryaa soo dhaqso aabbow aniga weligii soo dhaqso ma oran jirin markaan yara hadda maxaa ilada waa runtiis maxaa tala ah carruurtiina hadda intay yaryar yihiin access u yeesha islaanta xataa anaa kaxaynay isbarta sheekaysta ha ku sii barto ha ku maqlo lacag sii isku soo dhowaada hadhow wuu ku maqli doonaa isu dhan way maxaa marka faa'iidaa maxaa u sheekaynaysaa marka maxaa u sheekaynaysaa iyo waran baa leedahay ingiliis ku hadli doonaa don't worry dhowr maalin ha ku hadlo bari isagaa soomaaliya ku hadli doona kow waxaa kaloo uga sheekayn doontaa iyo waran mararka qaarkood oo ingiriis waa ku hadashaan labada markuu idinku adkaado ingiriisku soomaaliya u bedesha okay sheekeeya anigu marka adiga ku leekaa dadkaas hooyadaasee ku jeclaaday ninka raggaa maxaa laga rabaa shil kala tagaayo
dadku sidii loo kala duwan yahay, dumarku halkaasay marayaan, ninkii ragga halkaasuu marayaa, adigu barnaamij baa noqon doontaa, dadkaagaa waxu qabanaysaa, waa guursan doontaa, gabar baa shukaansan doontaa, naag baa ku jeclaan doontaa, guriga baabuur nooceeda, macallin baa noqon doontaa, hayee waddanka Ingiriiska adiga xataa isaga cunugaagu markuu 1920 barashada isagaa ku warrami doona ruuxiisu information ku siin doonaa. adiguna ninka ragga ah shirarkaa geynaysaa, miitinadan geynaysaa, aroosyaday ku raacayaan, kaljarka iyo luqadaha, gabayada, dhaqanka, diinta, lafjariska, waxaasoo dhan buu ku raacayaa. nin diyaaru noqonaya hadhowto. intii kale meesha wadi karto ha ku raaco, waddankii haddaad geysana ha lagu shaqeeyo. waxaa soo baxaya tan kale inaan dib ugu noqdaan rabaa. labadiinaba waxaan macquul ahayn 20 sanaa joogno carruurteeda jaamacada ka baxeen, annagana warqadda waana loo akhriyaa, waana naloo turjumaa. do you know why? idinku waddamadan ma degin idin boorsooyinka idin xeeran, macquul maaha. anaa hadalkan dhahaya daggay mas-uulka ah, wadaad iyo waran I don't care, waxaa talayga ah 3 times bay tala iga tahay. waalidka boorsooyinku u xirxiran yihiin oo furfura. waxaa ka baxa gaalo weeye. jeedaan kale yahay carruurtiina waxaad ku tiraahdaa maanu dhegayso sedwan baa tahay soo maaha kaas year 11 baad dhammaynaysaa, jaamacadda dimofor baan rabaa inaad qaybta biologiga maamusho. macnaheedu ma aha inaanu ka tegi doonin. hadduu doono bari khaliijku aadayaa, bari soomaaliya medical dhakhtarka noqon doonaa. laakiin maxaa dhici doona haddii kale? aan waxaan aaminsanahay faamiliga bisha Agosto 15 for good Soomaaliya u guuraya. anigu khibrad badan baan leeyahay oo xadaarad badan baan leeyahay. xadaarado badan xamar baan multicultural baan ku soo koray, hindiyan ku soo bartay, ku soo koray Yurub baan muddo jooga. hadda xadaaradahaas waxbay taraan. dhaqanka reer guuraaga ma shaqaynayo. haddaad 15 Agosto waddanka Ingiriiska for good uga guurayso, 14 Agosto maalinta hore cunugaagu waa inuu jaamacadda aado. maxaan ka cararay? hindiya waxaa nagu soo marqolo, waxaan u bixinay maxay dhaheen magaci muxuu ahaa, mootooyin bay wataan. 4 sanuu joogaa. waxaan ka weynay war luqadda gal. wuxuu ku leeyahay anuu Canada u socdaa. magac muxuu ahaa, magac baan bixinay. lacag baa kugu socotaa. markaasuu ku leeyahay aniga reerkayga ima dhihin waxbaro. inagu marka waa nimi, sharci baan u nimi, boorsadii baa kuu xirxiran ilaa iyo 2000. meel nooma socoto. cunugaagiina bannaankuu taagan yahay. wadaad la yidhaahdo yaasir fasaaga, aad baa u taqaaniin, oo Maraykan jooga, oo caalima, oo PhD holder, oo imaam ah, oo Eritrean ah. yaasir fasaaga raadsha waa su'aal la weydiiyey. waxaa la yidhi adigu successful see ku noqotay? wuxuu yidhi hooyaday markay timi waalidkay boorsooyinkay furfurteenoo waxay igu dhaheen waxbaroo wax noqo, laakiin eritreyaankii boorsooyinkooda u xirnayd carruurtooda beertay galeen. hageli dhulgaalo wey, waa ka guuraynaa, waa ka cararaynaa, waxaa kuma jiraan. aniga mid baa meel ii taal, been idin sheegi maayo. haddaa maqlayseen dadkii ka tegay Yurubaa Soomaaliya qaata laga taagan yahay. you know why? intay ku fashileen. communitygii buu ku fashilay, qabyaalad buu ku fashilay, shaqadii buu ku fashilay, reerkii buu ku fashilay, Soomaalina waa fashilinaya. waxaan qabaa anigu marka meeshaad joogto wax ka noqon marka hore. qofka halkan wax ka ah oo reerkiisa ka adag oo carruurtiisa ka adag ayaa Soomaaliyana wax ka noqon. marka dadka Soomaaliya waxaan oran lahaa dadka naga yimaada qurbaha CV-gooda ha la baaro. waxa ka bax qabiil iyo lacag buu wataa iyo waa reer hebel iyo wax ka jira male. CV-giisa ha la baaro. qofkii marka halkan ka adag halkan jagaha loo dhiibo.
waataan cajalada hore lahaa waa inaan waxqabad baranno. laakiin qolada anaga communitiga halkaan qaybinaya qabyaalada soomaaliya waxba kama qaban karaan. aabbow marka aabbow innaga dhaqan baan lahayn oo abti iyo adeer baa ina caawinaye adigu halkaan haddaa gabadhii carruurta ku dayso carruurtaadi wiilasha u badan yihiin walaalow yaa aabbu u noqonaya. maxaan dhahaan hadda ka hor aabbuhu westrenka markaan joogno noloshu waa mashquul. soomaaliya adeer waa madaxabtii qaraabo ma jirto halkaan le waqti ma jiro. aabbuhu wuxuu ku jiraa halkaan 10 rool ka badan buu haystaa. laakiin aabbaha soomaalidu hal xataa ma shaqo kuma leh. kow gabadhaa reerood ninkeedii baa tahay oo saaxiibkeed baa tahay oo wax kasta adaa u ah. ilaahayna ku og yahay annaguna ku ognaa. 3 shaqo halkaa ma tahay waxaan ka tegey carruurtaada wiilasha aad u badsho wiil aab baa u tahay oo adeer baa u tahay oo abti baa u tahay oo saaxiib baa u tahay oo coach baa u tahay oo mentor baa u tahay oo hagaa u tahay oo hogaamiyaad u tahay oo iimaan baad u tahay. intiiba aad ma hayno hadda inagu. shaqaa taallo idinma dhahayo anigu xisaab dhiga, idinma dhahayo tuushii ka shaqeeya. sirkalnaan idin sheego aabbayaalo arintan aabba iskale carruurtaada markaa la soo waxaa la yidhaahdaa ilmaheennu 95% waxay qaataan waxay nagu arkaan maaha waxa u sheegno. waxaa la yidhaahdaa haddaad rabto qof inuu qabto wax inuu qabto you have to show them. waxaa rabtaa cunugaagu inuu qur-aanka aqriyo adigu soo qaado. waxaa rabtaa cunugaagu inuu miiska fadhiisto wax aqriyo adiga miiska fadhiiso. mobilka detox lahaa jiraa saduuq sameeya ha jirto ugu yaraan 2 hours ama 1 hour a day. waxaan mobilka iyo jinnigan meel lagu guro adigu waxaa rabto akhri ujeeddaa ku jirtaa. buugaag tarjumana soomaaliya akhri carabi akhri halkaa fadhiiso ilmaha carruurtaa ku arkaan. aabba is reading mom aabba is reading expect you is reading okay wiigii mar israaca dhaqankaa soomaalida george maxaad ka sheekeen timetable-ka ku qoro eeshiyaankan fiirsada dadka kale ummadaha kale fiirsada carruurtii iyo waalidkii wada u socdaan 100 baan ku talagal wada casheeya waxay tusaysaa family together. wiilkaagu iyo gabadhaada dhasheen iyo wiilku idinka dhaqankiina caawinaada wada jirka wada cunta way idinka koobi garaynayaan. hadhow markay family noqdaanna dhaqankaasay ku dhaqmayaan. oo wiilka aabbaha rool model u ah gabadhaada ruuxeeda aabbaha rool model u ah. markaa weelka qorta oo muxuu yahay waxaa la yidhaahdaa aabbaha gabadh aabbuu hadduu adab leh maaskiisa caawina nin fiicana naxariis badan oo shaqaysta gabadhu halkaasay xisaabta ka qaadanaysaa ninkii raadinayso ursan doona. laakiin hadduu aabbuu dawdar noqdo gabadhu dawdarkaasi waa haystaa nin fiican waayo aabbaha gabadha cid uma fiican. wiilkuna sidoo kale waa maqasheen wiilashii gabdhihii inay caawin waayeen oo maxay dhaheen annaga hooyada yaa guriga ee tusadika jirtay oo karin jirtay annaga rool model baa haysana. gabadhii maxay leedahay bartiner baan rabaa cunug ila qabo wuxuu ku leeyahay hooyada yaa la qaban jira aniga markaan yara aabbahay weligii ma arkin adeeg buu noo keeni jira duu fiicnaa waxba kama jiraan taas. waxaan rabnaa insha allah haddii kaleeto ilmaheennuna waa inagoo taagan buu dayacmayaa morally buu u dalaa. waxaa jira waxa la yidhaahdo that deficient disorder. waxaan maqalay timidity deficient disorder. waxaa maqasheen ADHD waa concentration something disorder. that deficient disorder lacagi ma bedeli karto. waxaa rabta akhri waa that deficiency aabbuhu haddaanu involved ahayn aabbuhu haddaanu carruurta waqti siin aabbuhu haddaanu carruurtiisa jacayl iyo waqti gelin carruurtaasi noloshooda
deficiency baa ku jira. Aabba la'aan iskooladana waa laga arkaa markay koraan, bulshadana waa laga dhex dareemaa deficiencyga ku jira. Laakiin wiilka fitamiinkaas aabbaha inaa deficiency aan lahayn oo aabbuhu garab socdo oo ay isleeg yihiin, aabbo waa la garanayaa, kalsooni buu muujinayaa, baag meeluu noqdo u haystaa, culture iyo dhaqan buu haystaa, he knows who he is, identity buu haystaa. Gabadhuna sidoo kale. Haddii kaleeto aabbayaalow meeshaan joogno ma aha. Malaga inaad tiraahdo maya islaamahan hadda kuwii la sheega la saashaystay islaamihiiba maya, booska ana waa bannaan yahay, booskaasi waa bannaan yahay. Walaalow ha sugin xaaskaa kugu tiraahdo wiilkaagii la hadal, ha sugin inay kugu tiraahdo carruurtii waqti sii, xaaska ha sugin inay kugu tiraahdo cashagee, ha sugin inay kugu tiraahdo ballankii tag. Innaga Soomaaliya dhaqankeena aawe ninka raggaan booskiis maxaa ku dhacay? Wadadayna ku dhacday oo ah may wallaahi Yurub baa la yidhahdaa islaamo waxba uma baahna, waxaas ka ilow. jir carruurtan adaa aabbo ah, gabadhaan reerooda adaa soo guursaday, meesha isdhigtay joogtaa. Haddaa kibir iyo isla weynaan iyo markaa soo gashan carruurta kala cararaano haayo shaah ma samaysan karo aabbaa yimi iyo haayo waxba kama jiraan. Be simple. Let us be simple. Waxaa la yidhahdaa how do you know in aabe fiican tahay? Aabe fiican waxaa lagu gartaa markaad soo gasho carruurtiina kugu soo ordaan. Aabbo maxaa wadaa? Ay ku gurtaan. Laakiin haddaa markaa soo gasho ay kala cararaan aabe fiican ma tihi. Laakiin adeeg iyo looma jaxinjaxo baa laga sheegay mid wadaad sheegan jiray. Looma jaxinjaxo naagaha iyo carruurta. War xadiis baa noo akhridaa ilaahay maxaa la laa quwwata illaa billah. Sabtini Maxamed baa role model inoo ah. Gaali muslimna waa la qoray. Walaalayaaloo boos baa bannaan. Gabdhihii anaa warkooda haya. Boqolaal dumaraa la talaya anigu. Gabdhihii boqol boos baa ka bannaan. Cidlayd maxan baa ku dhacaysaa. Ragoo booskiina qabsada. Ragoo booskiina qabsada. Ragoo booskiina qabsada. Ragoo booskiina qabsada. Haddaad wax ku daraysaan gabadhaa haysaanna gabdhaha u cadaalad fala oo kulligood biila oo kulligood nolol fiican u sameeya. mas-uuliyaddaasna aakhirana ilaahay waa ku weydiinayaa, adduunkana sharaf baa ku yeelanaysaa. Please and please, please and please, gabdhahana waxaan leeyahay please and please, shaqadaa boqolkiiba boqol qaadatee idinkoo dayac ka cabsanaya ha dayacantee odayaasha qaybsiiya. carruurta iskoolka ha u kacayo, ha la daaho, telefoonka xiro adigu, raashinka ha kariyo, saxanku ha jabo, carruurtu shaaha ha gubaan. waxaa la yidhahdaa hogaamiyaha fiicani dad buu soo saaraa. aan dad soo saarno anaa nafteyda ka bilaabaya. berrito waa inaan ka tegi karnaa dad isdabiri kara oo kaljar leh, oo dhaqan leh, oo caqiide leh. haddii ay dhacdo aabbe wada fadhiisan ama wuu dhintay ama waa la kala tegey, walaalay abtiiyo adeer baa jooga. waxa kaloo aniga wori u haya adin sheegay aan raba inaan kusoo gabagabeeyo. waxaa moodaa westernka markaan joogno guurka horta dhinacina fududay oo waa laisu yeeraya maanta waxaa maqlaysaa maasha allah. Okay. laakiin waxaan ogaaday labadaa qof maalintii la isku daray baa u dambaysa involvementii dambe. hadday u badato gabadha hooyadeed xiriir la leh hadhow dhii doonta gabadha lay furo. waxaan ka soo wadaa khilaafyada lama xaliyo. ninku wuxuu leey naagtaanaa jeclaaday aduu shaqo kuma leyd aan dhex gelin. war dhaqanka aaw, war ehelka aaw, war waa la qaldamaya, war waa in laysu caqli celiyo, war waa in laysla wado, waa in laisla soo gaarsiiyo. haddii kale waxaa lahayaa rag leh naagtaan anaga isjeclaanay qof soo dhexgeli kara ma leh, gabadhna ay taagan tahay iyadoo 5 caruur leh caruura ninka ay furo. oday aawa lama hayo. dhaqankeeni baan hoos u dhignay. ummaduhu dhaqan bay leeyihin. war dhaqan odayaasha kaljarku kuwa qaaraanka urursha meel kasta way joogaan, meel kasta way joogaane. walaalayaalow ka hor waxay ku leedahay ninkayga wuu dulmayo waa bee waa hore waa yahay reerkiina aawe uma sheegin. haddii walaal adiga meel uu soo gata suuq reer ninkan kuma soo siin maya reerka anaa biila waa yasaynaa. ninkaana waa suuq rabay gabadh cidlo laga helo. halkaasay ku baaba'ayaa. aakhirka yaa dulman. gabadhaana waa dulman tahay, carruurtaasna cidlay ka baxayaan. aakhir iyo adduunna waa la isweydiinayaa
ninkani waa iska socdaa istanbul baa lagu sheegay iyo nairobi baa lagu sheegaya iyo islaan kaluu beenu sheegay iyo mid buu ku furay la sheegaya halkaasaa la oranaya reer mas-uul weeye ummadii inti kale awalayaal aawan waxaan la hadlayaa dadka caamatan oo qaraabada ah oo adeerka ah ama abtiga ah ama reerkan gabadhan iyo wiilkan iyo carruurtan walaalayaalow maxaan isugu daraynay haddaynaan waxaan aynaan caawin karin oo sii wadi karin ilay ummaduhu generationno weeye no no kota arrinta qalad waay arrintaa waxaan talaygaa in la xoojiyo bliis ha la xoojiyo arrintaa ha la xoojiyo waayo kaljarka uu kuf anfacaya adeer eeto ayeeyo wadi caawinaya heshiiya carruurtiina korsada haladin caawiyo dhaqaalaha idinka caawiyo carruurta idinka caawiyo wixii halidinka caawiyo dhibta markaa jirto a ka baxaysaan laakiin laba qofaa isjeclaaday anugu anaa lacag dhibtay gabadhan lagu daray waa isqabana macasalaama dayac badan baa generationno badan baa dayacmaya taas may woori labadan kala tegena nolol ku noolaan maayaan naagtana 5 nin iyo 5 carruur kala duwan bay dhalaysaa ninkaasna xisaab baa ku socota carruurtii uu dhalana oo magaciisa watana isagoo xanaaqsan buu ka tegey hadhowna kulli xabsi bay saa ku galayaan gabdho badanna mental illness baa ku dhacay aabahood jeclaa markuu ka tegey arrintaas dibaa laysugu noqdo arrintaa culimmadu ha xoojiyaan arrintaas masaajidadu ha xoojiyaan arrintaa scholarsku ha xoojiyaan familigii yaan la sii dayn gabadhi yaan la oran gabdhahaga saaxiibada ha ku caawiyaan macquul maaha walaal carruurtaani ehel bay leeyihiin waayo guurka islaamka loo baneeyey waan suuqaa laysaga doonanayn waxaa lagu talagalay fiiri ummaddan inay leedahay genealogy wiilkan inay hebel 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 gabadhtaa inay hebel aawo hebel hebel aawo waa in la xaliyo waa la iskhilaafaya waxaas way dhacayaan so in la xaliyo maaha ma jirto westreenka waxaan ka cabsanayaa inaan xal jirinbaba macasalaama gabadhi waxay leedahay war aniga dowladda gur isiinaysa carruurteeda inaan ka adig macasalaama ma intaa keliya introductionta cajiladan waxaan ka hadlaya side effectiga ama dhibtay community ku haya waa og tihiin hal baa loo baahanya saa lagu fiirsan karo raalli ahaada waxaan qalday nafteyda shidan baa shaqo ku leh waxaan wanaajinaya ilaahayna ku afco waxaan rajeynayaa masajka ee gudbiya abti iyo walaal iyo qaraabo ragga darsiyo please 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 and you'll see insha Allah wax badan ka qabano inta qalbigeena fiicnaan doona haddii kale dhaba ka shalayn doonta haddaan xaaskayga caawin lahaa haddaan cunugayga caawin lahaa haddaan waqti siin lahaa haddaan saan yeeli lahaa haddaan xal dooni lahaa haddaan yeeli lahaa waa dhihi doontaa be too late tan kale waxyaabahan keeni kara khilaafyada iyo carruurteena beerta galaan waa inaan proactive noqonaa waa inaan ka hor dhacnaa waa inaan information ursanaa waa inaan imkaaniyaad diyaarsanaa waxaan midkaan kali doona insha allah asalaamu calaykum السلام عليكم ورحمة الله وبركاته